السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada walaalayaal marka koobaad iyo marka labaadba janalkii Mudane Xuseen iyo cashirkeennii ku baro luqadaada hooyo afka Ingiriiska ah ama si luqada Ingiriiska ku baro afkaaga hooyo oo alaaba halkan ka soo gelino waxaan ku raadayay vocabulary-ga Ingiriiska iyadoo lagu macnaynayo afkaagii hooyo ee Soomaaliga ah. Bariyahan muddooyinkan badan cilad farsamo iyo hawlo iyo mashquul daraadeed waan kala maqnayn oo YouTube-ka waan ka maqnaa sida daraadeed rogaal celis cusub iyo casharkii aan bilownay oo halkii inooga sii socon doono walaalayaal ku soo dhawaada waxaan eriyaashan ku qoran maxaan ku raadayay qalinka madow ama farta madow ku qoran waa eriga Ingiriiska ah ama kelmadda Ingiriiska ee macnayn doono macnaheeduna wuxuu ku hor qoran yahay halkani oo waa ku qoran farta casaanka ah ama qalinka casaanka ah sida daraadeed kelmadda waan akhrinay kadib marka aan akhriyo ayaan kadib macnayn doonaa horta waan akhrinay kelmad kasti waan akhrinay kadib macnaheeda ayaan ugu dagalaynaa bismillaahir rahmaanir rahiim humor kelmadda humor maxaa ku raadayay waxaad aragtaan waxaan ku raada qowska dhexdiisa ama parentheska sawtaqana dhexdiisa in ayaa taala waxay macnaynaysaa inuu yahay maxaan ku raadayay noun ama isim inuu yahay ayay macnaynaysaa ama si magac inuu yahay haddii aad aragtaan sidoo kale kuwa ay v dhex taala ama v waxay macnaynaysaa isaguna sidoo kale maxaan ku raadayay ficil ama verb inuu yahay ayay sheegaysaa sida daraadeed bilowga kelmadda ugu horeysay maxaan niri humor baan niri humor kelmadda humor waa noun ama isim ama ficil ama magac sidaan doono aan u qiranay kelmaddaas waa maxay waxaan niri waa noun oo English ah isim waa soo taqaanaan oo Carabi ah ama si magac oo afka Soomaaliga ah intaasi sidaas ayay macnaynaysaa sida daraadeed waxaan ugu sameynay si loo kala garto kelmadda tii ficilka ahayd iyo maxaan ku raadayay tii verbiga ahayd iyo tii nounka ahayd ama si tii magac ahayd iyo tii ficilka ahayd tii sifada ahayd iyo tii maxaan ku raadayay adverbiga ahayd si aan u kala garanno ayaan ugu qornay oo qofka bilaadanka markuu magac uu isticmaalayo ama noun kelmad noun uu isticmaalayo uu kelmaddan isticmaalo markuu ficil isticmaalayna uu kelmaddii ficilka ahayd uu isticmaalo kelmadda ugu horeysa humor baan nidhi humor mad kaftan maxay noqotay Soomaali maxay noqonaysaa waa mad kaftan mad Soomaali weeyaan sidoo kale kaftan wana way noqotaa laga yaabo inaad kelmad kale English u taqaano kaftanka ama simaada baro tanna waa kelmad cusub oo iminka kugu soo biirtay sida daraadeed kelmado badan oo urursay waxay ka dhigan tahay luqadii ood u xabaan qaadatay ama si aad ku tala gashay inaad ku hadasho leena luqad kasta waxay ka kooban tahay kelmadahaas oo la habeeyo oo la dhiso ficilkooga iyo isimkooga iyo gabi ahaantooda dhanba iyo sifadooda dhanba si tartiib ah kadib lagu dhawaaqo sida daraadeed humor maxaa niri humor waa mad kaftan humor mad kaftan way noqotaa oo laba qof oo isla kaftamaya oo ama si madisi ama kaftan kelmadda ku xigta abolish waxa weeyaan mamnuucid joojin ama mamnuucid waa wax la mamnuuco ama si la joojiyo kelmad kale oo la macna jirto oo la yiraahdo forbidden sidoo kale joojin marka la yiraahdo Englishka cease bay noqotaa give up bay noqotaa sidoo kale cease give up stop sidoo kalena waa isla mid iyadoo kale laakiin tani waxay kaga duwan tahay waa mamnuucid wax waa la joojiyay joojintii laguma daynine waana la mamnuucay yani wax hadii tolo lagu dhaqmayo shaygaas waa shay la mamnuucay oo aanan maxaan ku raadayay isticmaali karin weeyaan marka maxaan niri kelmadda abolish waa verbi waa siye ama siya soo taqaanaanba waa ficil kelmadda ku xigta despise baa kelmadda ku xigta waa maxay saddexaad waa despise waxay ka dhigan tahay yadna sidoo kale waa verbi ama siya ficil weeyaan despise waxa weeyaan xaqirid iyo sid yaraysi qofkii oo xaqirtid ama aad yaraysatid ama si aad yastid yani qofkii oo agtaada aad ka soo qaad weydo
inuu qofkan waxba ahayn adagtaada ka soo qaadi weydo yani qofkii oo qiimo kula yeelan waaya qofkii oo xurmeyn weydo qofkii oo sharfin weydo qofkii oo qadarin weydo weeyaan sidaa daraadeed despise weeyaan waa maxay despise kelmadda cagsigeeda kasoo horjeedina maxay ahayd honor honorna waxay ahayd sharfin ama qofkii oo sharaftid ama xurmaysid bay ahayd waa ka idan maxaa nidhi humor waxaa nidhi maad ama kaftan abolish joojin mamnuucid sidoo kale despise waa maxay waa xaqirid ama yasid ama yaraysi weeyaan kelmadda ku xigtaana waa maxay waa contus waxaa la yidhahdaa dakhramid hebel baa dhagax ku jiiday oo uu dakhramay ama nabur baa gaadhay ama dilaacidna way noqotaa dilaacid meeshii oo dilaacda meel kasoo qad qof baa wax kugu dhiftay meeshii way ku dilaacday markaa tolmo iyo ama laba qodob baa lagu toli hal qodob baa lagu toli wuxuun baa lagu tolaya sidaa daraadeed kelmadda iyaduna waa ficil oo wad aragtaan fii baa hortaala ama fii sa u taqaanaan sidaa daraadeed iyadana waa dakhramid ama dilaacid ama si dhaawac kusoo gaara oo damage oo kale ayay la macno tahay taas sidaas weeyaan kelmadda afraad oo maanta cashirkeena ku jirta iyadna waa maxay overcome weeyaan overcome waa maxay waa ka guuleysi overcome waa maxay ka guuleysi weeyaan ka rayn ka guuleysatid yacni tartan baa inaga dhexeeyay qofkiiba tartankii aad ka badisay waad ka raysay waad ka guuleysatay saas oo kale weeyaan ama si kos ka soo qaad markay labada kooxood wada ciyaarayaan kubadda marka la ciyaarayo laba kooxood isla ciyaarayaan qola badinaysa markay qolo badiso qoladii kale ay ka badisay ka dhigantay ama si ka guuleysatay ayay ka dhigantay sidoo kale madaxweynayaashu markay tartamayaan ee xilka ku tartamayaan maxaan ku raadayay labadii madaxweyne ilaa wadanku laba madaxweyne ma yeelanayeen madaxweyne ku dhow yeelan soo ma sidaa daraadeed uu ka badiyay ama ninkan hebel baa hebel kale ka badiyay oo ka reeyay ama si ka guuleystay iyadana kelmaddu waa maxay waa verb kelmaddan maxaa ku xigtay iyadna ithloth waa maxay waa caajisnimo lazy baa noqonay caajiska soomay kelmadana ku darso oo waa noun ithloth waa caajisnimo ithlothful na waa adjective maxaan ku raadayay maxaa adjective muxuu ka dhigan yahay sifo ayuu ka dhigan yahay sifo weeyaan oo maxaad ku garanaysaa inuu adjective yahay maxaa hor yaala horteeda yaala a iyo d iyo ag yaala sidaa daraadeed ithloth weeyaan ta hore tadambana ithlothful weeyaan sidaa daraadeed ta adjective-ka ah waxa weeyaan caajis weeyaan ta horena waxay ka dhigan tahay caajisnimo lianna magacu iyo maxaan ku raadayay sifadu isku dhawaaq si mid oo looguma wada dhawaaqo maxaan ku raadayay ficilka iyo maxaan ku raadayay iyo sifadana si mid looguma wada dhawaaqo mid walba dhawaaq gooniyo ayuu iskaga leeyahay halka wiilka iyo gabadhu mid walba dhawaaq gooniyo uu leeyahay oo ninka marka loo yirayo war hebelow waa la odhani gabadhana heblaayoy baa la odhan sidaa daraadeed waxaa kala yihiin kuwana mid walba dhawaaq gooniyo ayuu leeyahay kelmadda u dambaysa oo maanta darsigeena kusoo koobi doono waxa weeyaan try waa taqaaneen oo waa isku dayd weeyaan try waa maxay waa isku dayd laakiin maanta waxa kusoo birtay out baa kusoo birtay sidaa daraadeed ma try out waxay ka dhigan tahay soo tijaabin wixii ood soo tijaabiso shaygii ood qaado soo tijaabiso waa soo tijaabin yacni shay baad qaaday waa soo tijaabinayaa shaygan inuu sidii sax yahay iyo inuu sax ahayn ama shaygan inuu fiican yahay iyo inuu fiicnayn sidoo kale marka gaariga iibsanayso kale gaari marka laga iibinayo waxa lagu dhahayaa ama lagu oranayaa intaas oo saacadood gaariga soo wad saacadood gaariga ama 2 saacadood ama 3 saacadood gaariga wadaysaa oo maxaan ku raadayay geer hore iyo geer dambe iyo ku kala wada gelinaysaa xoogna wadaysaa miirna wadaysaa marka maxaa laga sameeyaa motorka inuu kulaado sidaa daraadeed waa soo tijaabisay ka dhiganta marka try out waa maxay waa soo tijaabin shaygii ood qaadatid ood soo tijaabisid intaas ayuu ku egyahay darsigeeni maanta waxaan niga codsanayaa marka koowaad iyo marka labaadba inaad channelka subscribe ka saartaan like iyo share oo badisaan siina share gareysaan oo asxaabtiina kale la wadaagtaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh